wasiirka dastuurka iyo xiriirka golayaasha Soomaaliland ayaa markii uu horeysay ka warbixiyay hanaanka lagu dooranayo xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland isagoo si cad u sheegay inay soo hindiseen xeer cusub oo ka qayb qaadanaya saami qaybsiga xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland wasiirka oo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisi kamid ahaa sidii ay taladeeda iyo taagteeda tabarteeda ugu kordhin lahayd arrintan maanta halkan ku hay markaas taxaasiga waxaan u mahadcelinayaa golaha guurtida oo go'aansaday oo qortay inay sameeyaan xeer dhaxalkala oo ummadda lagu dhaqo oo golaha uu leeyahay oo ay kaga bogsano waxay guurtida iyo qoraalmayo ashada loo bixiyay sabab ku kala سويف رمضان كلنا كسوتي رجل سميري جسد رجل تصور ما يلاها كل الفريان تعرف كل هذا هو الإنسان وكان كل يوم ما تبي واحد من الوصول تاني أو واحد من هاي السنة يجيب بالي أيوة واحد اللي يحيي وتعرف كلاي ضد كأنه يجي يوتيوب أي ما يلاقي أو ما حدثه أنت من الله وهو ما حدثه وحضرتك قلنا نقول ما عندنا يحكي سوكوريو لكن وقت ما هو القرآن ما تبي يكرر ما هو وحتى الدول يعني حوالي ولا يسوي شيء أصله يقول هاي وهو قد يجي إلى هاي المرة هاي هذا هو واحد استوى hadalkan wasiirka dastuurka iyo xiriirka golayaasha Soomaaliland ayaa imanaya waqti muran badan ka taagan yahay hanaanka saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada Soomaaliland